Hameenkii jinka rasuulka iyo Cabdullaahi ibn Mas'uud waa ay israaceen markay tageen halkii ay jinka kula ballameen. Rasuulku xariijin ayuu ku wareejiyey asaga iyo Cabdullaahi ibn Mas'uud waxa uuna dhahay haddii aad xariijintaas ka gudubtid ma ay arkaysid mana ku arkayo. Qisada saddexaad qalbigaaga xakamee oo si fiican ila dhageyso qisadan. Maalin maalmaha ka mid ah rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo saxaabadiisa tujinaya ayay jinku maqleen aayadihii iyo qur'aankii uu akhrinayay rasuulku. Qur'aanka ayaa saameeyay rasuulkuna waa uu arkayay sallallahu alayhi wasallam jinka waxayna weydiisteen inuu kula kulmo mid ka mid ah buuraha Maka oo uu halkaas qur'aanka kariimka ah ku baro. Xadiis saxiix ah ayuuna nabigu sallallahu alayhi wasallam ku dhahay umirtu an atluwa alqur'aana cala aljinni faman yadhabu maci. Waxaa la i amray inaan jinka qur'aan u soo akhriyo ee raacaya. Markii koobaad oo rasuulku weydiiyay dhammaan saxaabadu way aamuseen. Markii labaadna way aamuseen. Markii saddexaad waxa uu jawaabay Cabdullaahi ibn Mas'uud waxa uuna dhahay rasuulka Ilaahay aniga ayaa ku raacaya. Rasuulka iyo Cabdullaahi ibn Mas'uud waa ay israaceen markay tageen halkii ay jinka kula ballameen. Rasuulku xariijin ayuu ku wareejiyey asaga iyo Cabdullaahi ibn Mas'uud waxa uuna dhahay haddii aad xariijintaas ka gudubtid ma ay arkaysid mana ku arkayo xitaa qiyaamaha. Micnaha haddii aad xariijintan ka gudubtid dib dambe isu arki mayno oo jinka ayaa ku dafaya. Saxaabigan wuxuu sheegay inuu arkay hameenkaas muuqaal argagax iyo cabsi leh wuxuuna arkay mugdi qam ah oo asaga iyo rasuulkaba daboolay sallallahu alayhi wasallam. Mugdi aan waxba laga arki karin laakiin wuxuu maqlayay codka nabiga sallallahu alayhi wasallam oo dhahaya fariista. Saxaabigan wuxuu arkayay shakhsiyaal midabkooda uu madow yahay laakiin dhar cadcad xiran waxayna garaacayeen bahalkan dafka la yiraahdo oo dumarka aroosyada ka baraanburo ay garaacaan. Wuxuuna ku tilmaamay inay dumar u nabiga ayay hareereeyeen waxayna u soo dhaweynayeen si cabsi leh. Si kadis ah ayaan u arkay ayagoo duulaya waan istaagay laakiin nabiga ayaa ii tilmaamay inaan booskayga fariisto. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu bilaabay inuu quraanka u akhriyo oo uu diinta baro ilaa salaada subax laga gaarayay. Wuu ku dhex tukaday wuxuuna amray lafuhu inay yihiin cuntadooda digada xooluhuna ay tahay cuntada daabadahooda. Cabdullaahi ibn Mas'uud wuxuu sheegay inay ahayd hameenkii ugu argagaxa badnaa ee noloshiisa soo maray cabsi darteedna ma uusan awoodin inuu ka gudbo xariijintii uu nabigu u sameeyay sallallahu alayhi wasallam. Muuqaalkan u sii sheer garay ugu yaraan 3 qof asxaabtaada ka mid ah page kana follow dheh.